السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ka hadlaynaa siyaasadda geedi socodka labaatan ka qaadista xasan cali khayre xilka oo mooshinkii baarlamaanka oo ahay mid maaragtay oo sharciyeysan oo nidaamsan. nidaam kastana waxa waaye wuxuu ku dhaqan yahay dowliga adduunka dhan waxaa nidaam oo sharciya u degsan baarlamaanada. maadaama dowladda oo 3 bilood u harsan tahay madaxweynaha waxaa loogu fadhiyaa inuu ra'iisul wasaare soo magacaabo. ra'iisul wasaaraha laakiin madaxweynaha oo soo magacaabayo waxaan jeclahay inuu noqon ra'iisul wasaare asaga maaragtay oo waxay ahayd oo maaragtay wax ka dhaxeeyaan ama family amba saaxiibtinimo. waxaan rabnaa ra'iisul wasaare oo aan la aqoonin inuu madaxweyne farmaajo u keeno. haddii uu keeno ra'iisul wasaare agtiisa joogo agaasime ah amba maaragtay maareye ah amba meelaha ka shaqeeyo, taas waxaan u aragnaa inay arrintaas arrin aad u xun tahay. xasan cali khayre oo lagu xadgudbaa u aragnaa. laakiin hadduu keeno ra'iisul wasaare aan la aqoonin oo maaragtay oo cusub oo jadiida oo maaragtay dadka ku cusub waa soo dhaweeynaa. taas horta waxaan u faraa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. baarlamaankana maanta mooshinka sida ay sheegeen ma ahayn in maaragtay xilka qaadis ay sameeyaan kalsoonida kala noqdaan ra'iisul wasaaraha. wuxuu ahay mooshin oo looga hadlayo shirki dhuusam reeb galgaduud. marka waxaan soo dhaweyneynaa xilka qaadista iyo nidaamka uu ku dhacay, maadaama maaragtay dulduleele iska jiraan. oo anigana aan ku faaloodo youtube general xuseen buubshe oo naga hadla dhinaca siyaasadda. dad badan waxay ka hadlaan arrimaha bulshada, aniga waxaan u qaabilsanay dhinaca siyaasadda. maadaama maanta ay mooshinkaas uu dhacay, waxaan maaragtay aad iyo aad dadka maaragtay oo waxay ahayd oo dhinac cadiifad qaadayso amba taageero amba qabiil ku hadlaya inay iska joojiyaan. waddanka waxaa soo maray ra'iisul wasaare cali maxamed geedi, xilka waa laga qaaday. waxaa soo maray cabdiweliyaa soo maray, dad badanaa soo mareen madax soo noqdeen. cumar cabdirashiidaa soo noqday. cid walbana xilka meerta waayo maahan inuu iska sii joogo maaha. marka maadaama ninkaas uu joogo 3 sano iyo bar, waxqabadkiisana waa la arkay, wanaagiisana waa la arkay. laakiin maanta waxaa loo fadhiyaa madaxweynaha. haddii siyaasadda ay noqoto siyaasaddii oo uu sheegay madaxweyne hirshabelle uu yiri saab baaldi oo dabada ka duleela biyo lagu wadaa, taas hadday tahay waxaan u aragnaa inay arrintaas ay xun tahay. oo dowladda hadda oo la ridane maaragtay oo lagu xadgudbay. wasiirka cusub oo madaxweynaha keenayna waxaan rabnaa wasiir aan la aqoonin inuu noo keeno. laakiin haddii uu keeno mid qabiil ku dhisan ama mid famil ku dhisan oo hoose oo dhinac kala xigo oo xaggiis xigo ama midig ama bidix aado, arrintaas ma doonayno. dadka oo qurbo joogtana waa kasoo horjeedaan. mudane madaxweyne waa ku salaama. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. halkan waa youtube journal xuseen buubshe. waxaa looga faaloodaa siyaasadda, geedi socodka, arrimaha bulshada, wax walbo. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.